daawadayga soo dhawow maanta waxaan adii hayaa tartan aan caadi ahayn oo ay ku loolamayaan 100 duuliye si ay u guuleystaan diyaaradan gaarka loo leeyahay oo qiimaheedu yahay $2,400,000 tamayaashan hal qof oo kaliya ayaa noqon doona guuleystaha haddaba yaa la bixi doona diyaaradan qaaliga ah daawo muuqaalka ilaa dhamaadka si aad u ogaato waqtiga daawadahayga challenge ugu horeeya wuxuu noqon doonaa in tartamayaasha loo qeybiyo 3 kooxood ujeedkuna yahay in ay koox walba ay soo jiido diyaaradda oo culeyskeedu yahay 40,000 oo rodol isla markaana ay ka gudbiso xariiqa dhamaadka ugu dambeyntii halkaasi waxaa ku guuleysan doona kooxda labaad kuwaasoo noqon doona kuwii ugu soo horeeyay ee ka soo gudbiya xariiqa intaas kadib waxaa loo soo gudbo doonaa round 2 oo ah wareegga labaad taasoo ah in tartamayaasha waa in ay u adkaystaan awoodda hawada ee ka soo baxaysa matoorka diyaaradda tartanka aad ayuu u adkaa waxaana 100kii duuli ka soo haray oo kaliya 19 duuliye wareegga saddexaad ee tartanka waxa uu noqon doonaa jump or stay 19 duuli ayaa loo keenay sanduuqyo nambaraysan mid kasta wuxuu dooran doonaa hal nambar tusaale ahaan mid ka mid ah duulayaasha ayaa doortay nambarka 8aad sanduuqa gudihiisana waxaa ku qoran 2 doorasho oo ah bood ama ka bax tartanka nasiibka wanaag waxa u soo baxday inuu boodo sidaas duulayaashii soo haray mid walba waxaa lagu kala saaray challenge-gaas ugu dambeyntii 19 duuli waxa ka soo haray oo kaliya 10 duuliye wareegga xiga ee tartanka wuxuu noqon doonaa 10 duuli ee soo haray waxaa lagu amray inay gacantooda saaraan diyaaradda qofkii ugu dambeeya ee gacanta ka qaada diyaaradda ayaa ku guuleysan doona diyaaradan oo qiimaheedu yahay $2.4 milyan tartanka markuu bilowday hal tartame ayaa isla markiiba iskaga haray tartanka waxaa u soo haray kaliya tartanka 9 ka mid ah tartamayaashii kadib waxaa loo soo bandhigay fursad gaar ah oo ah qofkii iska haray tartanka oo iscasila inuu ku guuleysan doono $50,000 mid ka mid ah tartamayaasha ayaa aqbalay dalabkaas waxa uuna sidaas iskaga hari doonaa tartanka intaas kadib xeerka tartanka ayaa la adkeeyay waxaa kordhay cadaadiska saaran tartamayaasha saacadihii iyo daqiiqadihii ay socoto ciyaartu tartamayaal badan ayaa daalay oo iskaga haray tartanka ugu dambeyntii waxaa soo haray oo kaliya 3 tartame kuwaasoo raba inay ku guuleystaan diyaaradan qiimaheedu uu yahay $2.4 milyan saddexdii tartame ugu dambeysay waxaa la siiyay hal saacadood si ay isku qanciyaan ama isku tanaasulaan laakiin mid walba wuxuu ku adkaystay inuu noqdo guuleystaha dhabta ah markii waqtigu dhamaaday waxaa loo keenay 3 sanduuq hal sanduuq waxa uu wataa guusha labada kalena waxay wataan guul darro tartamayaasha waxa ay kala doorteen sanduuqyadii ugu dambeyntii tartamahan hadda aragtaan ayaa ku guuleystay diyaaradii qiimaheedu yahay $2.4 milyan labadii tartame ee kale waxaa la siiyay $20,000 haddaad ka heshay muuqaalkan fadlan like saar subscribe garee channelka hana iloowin in aad nala wadaagto fikirkaaga qaybta commentiga mahadsanidin daawashada nabadgelyo